My country Ethiopia has started implementing its 10 dalkayga Ethiopia waxa uu bilaabay inuu qorshe iyo aragtiyo cusub ka yeesho inuu ka mid noqdo aragtiyaha horseedaya dariiq kasta oo barwaaqo lagu gaarayo. Today's opening of new container terminal at the port of Berbera. Dekedan cusub ee Berbera ee maanta la furay waa hiigsi micno badan u leh Ethiopia iyo Geeska Afrika. dhawaada warbixin aan idinkaga diyaarinay dekada weyn ee magaalada Berbera ee Somaliland oo aanu ku eegi doono sidii horumarka ay u sameysay dekadaasi Berbera. Haddii aynu taariikhda dib u celino sanadkii 2016 dhamaadkiisii madaxweynihii hore ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa heshiis 30 sano la saxeexay dekada magaalada Berbera shirkadda Dubai Port World oo maamusha dekado badan oo ka tirsan caalamka oo laga leeyahay dalkaasi Imaaraadka. madaxweynihii hore ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu heshiis 30 sano ah oo kontrakti la saxeexday shirkadaasi inay maamusho dekada magaalada Berbera iyada oo Somaliland ay qaadanayso 31% halka dekada magaalada halka shirkadda DP World ay qaadanayso 61%, halka dowladda dalka Ethiopia ay qaadanayso 19%. waxaa buuq badan u dhaliyay heshiiskaasi iyada oo baarlamaanka Somaliland ugu dambeyntii markay saxeexeen ay hawl gashay ama ansixiyeen ay shirkadaasi shaqadeedii bilowday iyada oo mucaaradka Somaliland ay ku kala qaybsadeen. dadkii heshiiskaasi taageeray waxaa kamid ahaa mucaaradka Somaliland oo ugu horeeyo injineer Faysal Cali Waraabe halka ay ka soo horjeedeen xisbiga wadani ee Somaliland. madaxweynihii hore ee Somaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa heshiiskaasi waxa uu ku tilmaamay heshiis taariikhi oo ay dan weyn ugu jirto Somaliland sida uu hadalka u dhigay. markii heshiiskaasi la saxeexay ayaa waxa ay bilowday dekadaasi inay ballaarin ku sameyso shirkadaasi iyada oo qaybtii ay ka koobanayd laba jibaar ay ku dartay shirkadda DP World ee maamusha dekado badan oo ka tirsan caalamka laga leeyahay dalkaasi Imaaraadka Carabta. waxaa heshiiskaasi markii uu saxeexay waxa ay sidoo kale bilowday wadada caanka ee Berbera Corridor oo isku xirta magaalada Berbera iyo magaalada Wajaale ee xuduudda Somaliland iyo Ethiopia. waxaa markii heshiiskaasi bilowday iyada oo ay buuq badan ka dhalisay dowladda Soomaaliya oo diiday inaysan ka hortagayso dekadaasi Soomaaliyana aysan faragelin ku sameyn doonin bay tiri dekadaasi Dubai Port World sida ay sheegtay dowladda Soomaaliya xilligaasi. baarlamaankii Soomaaliya ayaa waxa ay diideen in ay gabi ahaanba ay ka shaqeyso dekadaasi iyaga oo ka hor yimi in ay ka shaqeyso dekadaasi kana mamnuucay baarlamaanka Soomaaliya. waxaa xusid mudan in Somaliland aysan dhag jalaq u siin iyada oo ugu dambeyntiina maanta ay soo gaadhay 3 sano ka bacdi in dekada magaalada Berbera xarig wajigiisii koobaad ay ka soo qayb galaan mas'uuliyiin ka socota dowladda Ethiopia, shirkadda DP World, Imaaraadka Carabta iyo dowlado kale oo darisa iyo Somaliland. halkaasi maanta waxaa soo gaaray mas'uuliyiin ka socota dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia oo ugu horeeyay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaaliya Mustafa Maxamed Cabdi wasiirka gaadiidka haweeneyda ka tirsan oo wasiirka gaadiidka dalka Ethiopia iyo waliba wasiirka maaliyadda dalkaas Ethiopia Axmed Shide. waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa madaxweynaha Somaliland iyo gulihiisa wasiirada maarayaha dekada Berbera iyo maarayaha shirkadda DP World waxaa halkaasi wareen ka hadlay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia Mudane Mustafa Maxamed Cabdi wasiirka maaliyadda dalkaas Ethiopia iyo haweeneyda wasiirka gaadiidka dalkaasi iyaga oo sheegay inay ku faraxsan yihiin muhiimad weyn ay ugu fadhido dekada magaalada Berbera oo Ethiopia bay sheegeen in ay u tahay muhiimadda koobaad. waxaa ugu dambeyn shirkaasi soo xiray dekada magaalada Berbera madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi isaga oo shaaca ka qaaday in uu aad u faraxsan yahay in uu xukuumaddiisu ay tahay mid wax weyn ay ku faanayso inay horumar ku sameyso Somaliland. waxa uu sheegay in dad badan oo ka soo horjeeday xilligaasi hadda ay arkayaan horumarka iyo nidaamka ay sameysay sida ay sheegeen madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. Somaliland ayaa waxa aysan dunida aqoonsi ka helin iyada oo lagu tilmaamay in ay ka dhaceen doorashooyinka dimuqraadiga oo ugu fiicnaa Afrika sida la sheegayo in nabad iyo xasillooni ay ka jirto iyada oo Somaliland haddaba dowladaha dariska ay xiriir fiican la leedahay.
kuwii bilaabe dadkan baxaya lalinayo waa baayadooda kuwii ka baydhe bahdadka laxade luqunta gooyay waa baaba'ooda kuwii ka baydhe bahdadka laxade luqunta gooyay waa baaba'ooda